Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin wada salaam asxaabta meel walba aad joogtaan. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago sida aad u kordhin lahayd graphics-ka kombiyuutarkaaga ku xiran hadduu yahay 128 MB sida aad ugu dhigi lahayd 1 GB. Waxaase laga yaabaa inaad ka cabanayso in markaad wax ku editing garaynayso kombiyuutarkaaga uu culeys fara badan kugu hayo. Midna ogow, kombiyuutarada loogu talagalay in wax lagu editing gareeyo waa kombiyuutaro aad iyo aad u khalisan hadday ahaan lahayn laptop iyo systemba. Marka maanta waxaan kula wadaagi doonaa sida aan u kordhin lahayn graphics-ka kombiyuutarkaaga ku xiran hadduu yahay tusaale ahaan 128 MB sida aan ugu dhigi lahayn 1 GB. Marka daawasho wanaagsan. Marka waxaan ogaanaynaa inta graphic process unit keena inta GB uu yahay ayaan rabnaa inaan ogaano. Marka si aan u ogaano marka hore taskbar-ka ayaan right click leenahay. Kadib waxaan ka sii xulanaynaa task manager. Kadib markaan task manager aan ka xulano, kadib waxaan ka sii xulanaynaa performance. Marka sidaad u jeedo marka GPU graphic process unit keena waa 2 GB. Midda kale aan rabo inaan kula wadaago waxay tahay in loo isticmaali karo processkan Intel 4400 wax ka sareeya ayaad u adeegsan kartaa. Laakiin Intel 4000 uma maleynaa in uu processkan hadda aan rabno in aan ku kordhino GPU-geena aan virtual RAM-keena aan ka dhigno 1 GB. Marka uma maleynaa inuu ku shaqeyn doono Intel 4000 inuu ku shaqeyn doono. Sidaa hadda aan u jeedo waxaan adeegsanayaa Intel 5500 ayaan adeegsanayaa. Laakiin hadduu midkaaga yahay Intel 4400 processkan waad adeegsan kartaa. Laakiin uma maleynaa inuu ku shaqeynayo Intel 4000 laga yaab inuu ku shaqeeyo. Marka waan iska soo close gareynaynaa. Marka ugu horeyso marka waxaan ogaanaynaa virtual RAM-keena inta MB uu yahay ayaan rabnaa inaan ogaano. Marka si aan ogaano marka hore waxaan leenahay right click. Kadib waxaan leenahay display setting. Ugu hore marka resolution-ka aan aniga adeegsanayo waa 1920 waana full HD. Kadib marka waxaan ka xulanaynaa advanced settings. Marka advanced settings markaan ka sii xulano, kadib waxaan ka sii xulanaynaa display adapter properties. Kadib markaan ka xulano sidaad u jeedo meeshan dedicated video memory-ga virtual RAM-kayga waa 128 MB. 128 MB meesha ku taala ma aha 128 MB. Waxay u taagan tahay 256 MB ayay u taagan tahay. Tiro walba meeshan ku soo qoranta waxay u dhigantaa times 2 ayay u dhigantaa. Hadda 128 MB haddii aan ku dhufano 2 waxay u dhigmataa 256 MB ayay u dhigantaa tiradan. Marka waxaan rabnaa in aan 1 GB aan ka dhigno meeshani. Ugu hore marka 2 GB markaan MB ahaan aan u fiirino waxay noqonaysaa 2048 ayay noqonaysaa. 2048 divide by 2 markaan dhahno waxaan rabnaa inaan ogaano 1 GB waa meeqa MB. 2048 markaan 2 aan u qaybino waxay noo soo baxayo 1024 MB. Marka 1024 MB waxay u dhigantaa waa 1 GB. 1024 marka waxay u dhigantaa waa 1 GB. Marka intaas waan isla ogaanay. Marka ugu horeyso marka kana minimize ayaan iska soo leenahay. Marka waxaan rabnaa in aan kordhino tiradan 128 aan ka dhigno 1 GB inaan ka dhigno ayaan rabnaa. Marka ugu horeyso waxaan soo furanaynaa start menu-ga ayaan soo furanaynaa. Kadib waxaad ku qoraysaa rec edit. Kadib waxaad sii leedahay open ayaad leedahay. Kadib marka option-kan kale ayuu ku soo bandhigayaa. Kadib marka waxaan ka xulanaynaa HK local machine ayaan ka xulanaynaa. Kadib waxaan ka sii xulanaynaa software. Kadib waxaad raadisaa folder ay ku qoran tahay Intel. Kadib Intel waa kan. Kadib waxaan leenahay Intel-kan ayaan furaynaa. Markaan hadda Intel-kan aan furno marka ugu horeyso waxaan sameynaynaa Intel-kaas folder-kaas anagoo dul taagan ayaan right click leenahay. Kadib waxaan ka sii xulanaynaa new. Kadib waxaan leenahay new key. Kadib marka folder-kan cusub ayuu inoo sameynayaa. Kadib waxaan ku qorayaa GMM waa all capital ayaa laga doonayaa. Markaan folder-kan sidaan oo kale aan u sameeyo kadib waxaan imaanayaa qeybtan inta ayaan imaanayaa. Kadib waxaan leenahay right click. Kadib waxaan leenahay new. Kadib waxaan ka sii xulanaynaa dword 32 bit volume ayaad ka xulanaysaa. Kadib marka meeshan waxaad ku qoraysaa marka meeshan waxaan ku qoraynaa dedicated segment size. Marka dedicated segment size waxa laga doonayaa d-da capital ayaa laga doonayaa. Segmentiga esta waxa laga doonayaa inay ahaato waa capital. Size-kana waxa laga doonayaa in uu ahaado capital. Macnaha waxaan ka wadaa xarafyada ugu horeyso waa in ay capital ay ahaadaan.
waa okay ayaan leenahay. Kadib markaan okay aan dhahno, kadib meeshan ayaan double click siinaynaa. Meeshan waxaan ku qoranaynaa 512 ayaan ku qoranaynaa. Marka 512dan waxay u dhigantaa haddii times 2 la dhaho waxay u dhigamataa waa 1024 ayay u dhigantaa, taasoona ah 1 GB. marka meeshan waxaa ku dhahay dedicated video RAM-kan tirada ku qoran waa times 2, tiro walbo meeshan soo gasho waa times 2. marka haddii 512 haddii meeshan ay soo gasho waa hadda tusaale ahaan haddaan calculatorka aan soo baxsano 512 lagu dhuftay 2 waxay u dhigantaa 1024 ayay u dhigantaa MB, taasoo u taagan 1 GB ayay u taagan tahay. marka kadib marka waa iska soo close gareynaynaa. marka meeshan waxaan ku qoranay 512 ayaan ku qoranay, taasoo u dhiganta 1 GB. kadib marka waxaan leenahay okay. marka dhammaan waa iska soo close gareynaysaa, close ayaan leenahay. marka meeshan hadda sidaad ujeedo 128 MB 128 MB marka waxay isku bedeli doontaa 512 MB ay isku bedeli doontaa. marka si ay iskugu bedesho ugu horeyn computerka waa inaad restart aad u dirtaa. start menu ayaan furanaynaa, kadib restart ayaan leenahay. kadib markaan restart aan u dirnay computerkeena wuu noo soo yara kacay. markaan waxaan rabnaa inaan ogaano virtual RAM-keena inuu noqday 1 GB. marka hore waxaan leenahay right click, kadibna display settings ayaan leenahay. kadib marka waxaan kasii xolanaynaa advanced display settings ayaan kasii xolanaynaa. kadib waxaan leenahay display adapter properties. marka tirada meeshan waxay noqotay 512 MB ayay noqotay, taasoon u taagan 1 GB. waayo waxaan dhahay tiro walba meeshan soo gasho times 2 dheh waxayna u dhigantaa 1 GB ayay u dhigantaa marka tiradan. marka waa intaas un. marka hadda kadib marka waxaan rajayn doonaa in computerkaaga xoogaa yar awoodo yar uu heli doono hadduu leeyahay graphic process unit. marka muuqaalada soo socdaan waxaan kula wadaagi doonaa tips kale aad Adobe Premiere Pro aad sida dhaqsiyaha badan aad wax ugu dhitin garee lahayd, kaas oo aadan ka dareemi doono culeys fara badan. marka dad badan ayaa waxay leeyihiin RAM-ka computerkayga ku jiro aad iyo aad ayuu u yaryahay. marka aniga ka shakhsi ahaanteyda computerkan RAM-ka igu jiro waa 4 GB, laakiin midka kale waxaan ku isticmaali jiray RAM 8 GB ayaan ku isticmaali jiray. sidaad u jeedo meeshan RAM-ka igu jiro waa 4 GB. waxaan isticmaalayaa laptop Core i3 ayaan isticmaalayaa. marka inta badan laptopkan ayaan wax ku editing gareeyaa oo laptopkan ayaan wax walba aan ku qabtaa. marka kaliya waxay u baahan tahay waxaad adiga haysato in aad adiga basreysato. marka ma ahan in aad wax weyn aad ku fikirto aadan heli karin. marka wax walba waqtigooda ayay iska imaan doonaan, waad heli doontaa. marka waxaan rajayn doonaa farsamadan aan idinla wadaagay maanta in computeradiina xoogaa yar performancegiisa xoogaa yar sare ee u qaadmayso. ugu dambeyntii fadlan haddii ay tahay marka kugu horeyso channelkan soo booqato fadlan subscribe saar, furo calaamada gambaleelka si ay kuugu soo dhaca muuqaal walba aan soo dhigno. haddaad videoga ka faa'iiday la garay una sii share garay asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan. ugu dambeyntiina waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.